السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاشي عشكين وإلهي ما هدي أن سوسو لابني مر لباد إيه مر سدحاد إيه مر أفراد نقول نبضة إذن كون نبضة وإلهي ما هدي أصحابي هدي أتكو سبتها الشانل كا لايك شير سبسكرايب وحقاقة بحي بحسو جيدنا وحقيقة ما أنت وحان إذين وذا قصة yaab la igu qoslisay markii aan akhrinayay baan idin wadaa maanta waa gabar waxay tiri gabadhaas waxyaalihii iigu fiicnaa ee isoo mara waxay ahaayeen gobol dhaafkii ninkeyga bay tiri gabadhaasi aan idin gudagalay qisada asxaabay gabadhan waxaa la oran jiray Adeesa waxay isbarteen meel lagu caweeyay ee wax isku barteen wiil la yiraahdo Joseph Adeesa iyo Joseph waxay raadinayso qof ay xiriir la yeelato markaas bay raadinayso habeenada kamida ayaa meel lagu caweeyay isugu yimaadeen oo xaflada ka jirtay bay yimaadeen labadooda bas waa la isbartay magaca bilaa la dhahaa Adeesa la dhahaa adiga magaca Joseph baa la dhahaa waa la isbartay Joseph wuxuu ahaa nin aad u xishood badan asxaabay dadkii waxay lahaayeen muddo 4 sano ah Adeesa iyo Joseph waxay xiriir lahaayeen muddo 4 sanadood ah xiriirkii waxaa ku soo kordhay faa'iido xiriirkii waxaa ku soo kordhay faa'iido gabadha Adeesa ay uur bay yeelatay way isguursadeen wiilkii Joseph ahaa uur bay yeelatay dad waxay noqdeen family meel degan Joseph wuxuu ahaa nin ka shaqeeya nin boozo ah security buu ahaa ninka la yiraahdo Joseph asxaabay waxaa dhacday markii ay dhashay ilmaheeda ugu horeeyay gabadha Adeesa ahayd bay waxay aragtay isbedel ku yimid ninkeeda iyo isagoo aan ma aragtay si gooni ah oo wada hadalkoodii iyo xiriirkoodii iyo waxoodii oo isbedelay hal mar bay aragtay gabadhii Adeesa ahayd way yaabtay waxay tiri maxaa qaldan familkeeda la tashatay waxay tiri ninkeyga sidoo hore ma ahan sida aan isku baranay ma ahan marka ma garanayo waxa iga qaldan gabadha iyadoo xitaa maxay ahayd oo gogol la sugu yimaado nin inaag isqabo wixii lagu arki jiray xitaa uu joojiyay ninkii la yiraahdo Adeesa isma yimaadaan tartiib darag gurigu soo galaa sida qof ma aragtay marti degdegsan cunadiisu cuna shaqadiisu aada ayada dhanba sidee xaal yahay iyo xagee xaal ku mara ma yiraahdaba gabadhu way yaabtay maalmaha kamid ah bay waxay samaysay waxay tiri teleefankaaga ii dhiib waxaan rabaa inaan walaalkay la hadlee teleefanka aniga lacag uma jirtay okay wiyo teleefankii u dhiibay teleefanka bay waxay la aaday kor teleefanka iyadoo dirsanaysa bay waxay aragtay fariimo ay la amakaagtay bay aragtay fariimo jacayl ah iyo xiriir ah bay teleefankii Joseph ku aragtay gabadha Adeesa ahayd way yaabtay lambarkii isla markii safe garaysatay lambarkii bay wacday qofkii xiriirka jacayl oo ay fariimay arkaysay bay wacday lambarkii markay wacday waa laga qabtay waxay tiri noloshayda baad qarribtay bay tiri qarribna iimaba dhinaba ee ninkeyga ii nabadgeli idab ma lihidi canaan qaylo ninkaaga soo raashadaa lihi maxaa ninkeyga ii nabadgeli iyo maxaa meesha keenay ninkaan saa soo doontaa lihi saaxiibaan mudana xiriirkeenu meel fiican buu marayaa hawada iga bax baa gabadhii Adeesa ahayd lagu yiri Adeeso way xanaaqday way karkartay cirkii baa ku soo dumay waxay ismaysay garan weyde bas sheekada markay halkaa marayso bay ninka la hadashay waxay tiri walaalow maxaa kaasi ah maxay tahay waxaan yaa idinka sheeka dhaafine gabadha Adeesa ahayd ilmo kale ay dhashay 2 caruur ay haystaa markaa 2 caruur ay haystaa Adeeso walaalow reerkeena iyo mustaqbalkeena iyo caruurteena maxaa u burburinaysa maxaa dhiban ku geystay maxaa iga tabanaysa bal aan tashano oo reerkeena aan ma aragtay aan ka fikirno bas ninku wuxuu yiri anigu qaylo ma u baahan horta markiisa horena Joseph wuxuu ahaa nin aad u afgaaban oo xishood badan buu ahaa gabadhan Adeesa ayada furno qof active oo furfurnay bay ahayd bas wuxuu yiri walaal ani qaylo badan ma rabo waxaan u baahanahay break ina isiisid oo gurkeena aad break siiso
baabnu baahanay hadda aniga maxay ahayd aan xoogaa kala fogaano aan soo fikirno adiguna soo fikir ana aan soo fikiro aan time is siina bal xoogaa muddo ah aan siina bal waqti waa la joogay wiilkii maxay ahayd meel gooniyoo degay ayadii ilmaheeday dhex joogtay way xisaabtantay reerkoodii bay la tashatay waxay tiri anigu marnaba diyaar uma ahi in reerkaygu dumo furiin wixii la dhihi jiray mar rabay tiri ninkayga waan naftaan dul dhigaaya ma kaaraaya tiri reerkaan aan usoo tiiri tacbeelay intaas aan soo dhirnaay 2 caruur ii joogto maanta ninay naaw si sahlan ku qaadato ma yeelay tiri gabadha adees ahayd reerkeeda garab bay ku siiyeen waa ku saxan tahay arrintaas waa ku saxan tahay adeesa waxay telefoon u dirtay ninkeedii Joseph ahaa waxay tiri walaalow anigu waxaan diyaar u ahay in aan meel dhex isugu imaano adigana aad carada iska daysid aniguna aan iska daayo oo ilmaheena future-ka ilmaheena aan ka tashano aan isu soo dhawaano ani adigu diyaar u meherkeen oo burbur maanta aniga bas ninkii maxay ahayd Joseph ahaa arrintii xoogaa wax hadal ma aragtay hadal fiican buu u qaatay in ay gabadhaas ku hadashay adeesa ahayd wuxuu yiri waayahay walaalay anna waan soo fikirayaa wuu soo fikiray wuu soo laabtay jawaab buu soo siiyay wuxuu yiri diyaar waxaan u ahay wixii dhacay waa dhaceen walaalay in aan guurkeena badbaadino ilmaheena iyo reerkeenana aan isku keensano baan diyaar u ahay walaalay raalli ahaa bilchance si qofka bini'aadanka uu qaldama waan qaldamay maxay ahayd waxaan rabaa inaan reerkayga u soo laabto walaalay second chance isi adiguna adees waxay tiri xabad kama qabo ninkii Joseph ahaa uu soo laabtay ilmo saddexaad bay dhaleen 3 caruur ay haystaan markaan waxay tiri maxay ahayd walaalo waxaas oo dhan iga jooji aniga masayr iyo naag iyo magaciisi shaqo kumalihi wixii dhacay way dhaceen waxaan diyaar u ah inaan chance ku siiyo oo reerkeena aan si daacadnimo ku jirto iyo jacayl aan u dhisano baan diyaar u ahay okay yiri waa isku soo laabteen gurigeedii buu ku soo laabtay warqadihii furiinka iyo maxkamadda iyo wixii dhan wuu drop grade way drop graysay waxay dhaheen reerkeena waa dhaqaneena lawyer way la hadleen labadoodaba waxay dhaheen anagu waxaan go'aan ku gaarnay inaan ma aragtay guurkeena badbaadino oo qof walba wixii qalad uu tabanayay uu joojiyo baan go'aan ku gaarnay adees iyo Joseph waxay ku noolaadeen markii dambe soo laabteen nolol kasii farxad badan tii barigi ay intays isdagaalin kasii farxad badan oo kasii kalsooni badan baa u soo kordhay labadoodiba jacayl kalsooni maxay ahayd in ilmada isla korsadaan kaale iska arkaan dhicin yaa jabin baa maxay ahayd meeshas reerkaas maxay ahayd ku soo kordhay bas gabadhii adeese ahayd maalmaha ka mid ah bay waxay la soo wadaagtay marka qisada tan Facebook waxay tiri dadka yiraahda nin ka tagay mar oo xiriir samaystay khilaafta u laab arrintaas anaa beeniyay ee tiri gabadhii adeese ahayd arrintaas anaa beeniyay waayo guurkayga waxay tiri wuxuu soo istaagay qalqiil final buu yimid laakiin aniga ushi dhexda uga qabtay oo maxay ahayd geesinimadaas iyo dadnimadaas aniga yeeshay waana ku guuleystay gabdhaha yiraahda chance kale ma jiro second chance ma jiro baan beeninayaa bay tiri gabadha adeese ahayd waa kaasa farxad iyo nolol iyo jacayl baan haystaa haddii aan inta caroodo aan dhihi lahaa ninkii naag shakaansaday ima soo galo maanta maxaan hayn lahaa marka gabdhow ha dhihinina second chance wax la yiraahdo ma jirto oo masayrka faraha badan la iska daaya hadduu qofkan waa bini aadan u qaldami karaa hadduu qaldamo qofka hadduu ka soo laabto chance hadhiina hal mar bul iyo maxay ahayd ninkii naag kale shukaansaday oo way waxaas wax shaqeeya ma aha waxaa loo baahan yahay qofka especially guurka kaala dhaxeeya carruurta kaala dhaxayso in aad waqti siisid waqti inaad siisid inaad xisaabtantid 2 jeer fikirto waa kan hadda gabadha adees farxadii ku nooshahay reerkeedii ninkeedii carruurteedii bay isku haysataa
maanta halkaas baan waxaan ugu baxayaa qisadii ahayd ninkayga gogol dhaafkiisi waxaan ka helay farxad iyo guurkayga oo badbaada baan maanta kusoo gabagabaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad nagu cusub tahay mar labaad channelka subscribe share like waa xaggaaga, wixii tala soo jeedinana waa xaggayga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.